xarunta mawlaca macalin nuur maxamed siyaad ee ku yaalla magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirkii wadatashiga ahaa ee ay yeelanayeen mid ka mida beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka banaadir iyo qaar ka mida gobollada dalka soomaaliya muddada uu shirkan soconayey waxaa ka soo qaybgalay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya xubno ka mida labada gole ee baarlamanka federaalka soomaaliya ee ku abtirsada beeshan qaar ka mida madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka siyaasiyiin xubno qurba joog ah oo dalka dibaddiisa ka yimid shacabka ka soo jeeda beeshanna isaga kala yimid gobollada dalka kuwaasi oo afartii cisho ee lasoo dhaafay xarunta mawlaca macalin nuur ee magaalada muqdisho kaga qaybgelayey shirka wadatashiga mid ka mida beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka banaadir iyo guud ahaanba dalka soomaaliya shirkan ayaa laga soo saaray war murtiyeed lagu muujinayey nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee loo qabtay shirkan iyadoo diiradda lagu saaray xaaladaha amniga dhaqaalaha iyo midda siyaasadeed ee xilligan dalka ka jirta amniga beelweynta mudulood waxay ka dalbaysaa dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo amisom in si degdeg ah looga xoreeyo deegaanada beesha oo ay muddo dheer ku habsadeen nabadiidka beesha mudulood waxay si mug leh gacan uga geysanaysaa xoreynta deegaanadeeda iyo in la gaarsiiyo maamul dowladeed shirku wuxuu ka digayaa in la soo geliyo dalka ciidamo shisheeye oo aan sharciyad haysan kana tirsanayn amisom beesha oo caan ku ah taariikhna ku leh dhisidda taageeridda la shaqaynta iyo garabsiinta dowladnimada ayaa xilligan lagu jiro waxay cod dheer ku sheegaysaa jiritaanka tacadiyo iyo xadgudubyo culus oo ka jira guud ahaan hay-adaha dowladda dhexdooda gaar ahaanna hay-adaha amniga iyo garsoorka waxayna ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto xaaladahaas taagan arrimaha siyaasadda shirka wadatashiga wuxuu soo dhaweynayaa go'aanka baarlamanka oo qeexaya in gobolka banaadir ku yeesho 13 xubnood oo matalaad ah aqalka sare taasoo lagu dhaqangelinayo in ay ka mid noqdaan baarlamaanka 11aad ee 2021 madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka mid ah xubnaha madaxweynayaashii hore ee dalka iyo siyaasiyiinta ku abtirsada beeshan ee kulankan ka qaybgalay ayaa gabagabadii madasha ka sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka qaybgalka shirkan isagoo bogaadiyey isla markaana ku tilmaamay in waqtigii loo baahnaa lagu soo beegay shirkan waxaan rabnaa xilligan oo kale markii ay tahay dhaqanaa jiray dowladnimaduna dhaqanay leedahay sideedaba xilligan oo kale marka la joogo ma aha xilliga shuruuxa la sameeyo hay-ada la magacaabo waxa la dhiso inta laga boodo xagga laga dhaca la yiraa ma aha xilligan oo kale waxa waaye xilliga la yiraahdo war waxa yaynaga kala baahin oo inaga kala daadinina aan tubti ay lahayd aan marsiino xilliga la yiraawa hoggaanka dawladda ee maanta jooga iyo xukuumaddiisa iyo madaxdiisa iyo mas'uuliyiinta joogto dalka marna inuu marnaado oo marnaani ay jirta maaha laakiin de wax kastoo joogahay maqaam iyo magac iyo wax loogu talagalay shaqay leeyihiin xukuumadda maanta joogto meeshaasay ku aadan tahay ha ka soo baxdo ha hagaajiso ha iska ilowdo waxyaabaha aan dadkaanay aqbalaadooda aanay ku iimaaneyn wax kasta oo dadkaan aanay aqbalin sharcina maaha qaanuunna maaha mana dhaqan gali karaan Umar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho.